salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo 14 bisha afraad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah Abiy Ahmed iyo Farmaajo oo qadka telefoonka ku wada hadlay iyo xukuumadda Abiy oo taageero dhinac walba u ballan qaaday sidii Farmaajo dib loogu dooran lahaa go'aan laga soo saaray kuraasta laga xayiray koonfur galbeed ee mise kursi ayaa la fasaxay mase jiraan kuwa weli lagu dhagan yahay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo yeeray iyadoo la qorsheenayo maanta in intooda badan la dhaarin doono 10 wariye oo kamid ah kuwa ka howlgala Somaliland oo xabsiga loo taxaabay iyo maxaa sabab u ah go'aanka xildhibaanada kudlada nisa intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka oo diyaad ku cusubtay channelkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada ood kuma santaynad ka meetay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii u fidsan Abiy Ahmed iyo Farmaajo ayaa qadka telefoonka ku wada hadlay iyadoo xukuumadda Itoobiya ay taageero dhinac walba u ballan qaaday Farmaajo sidii dib loogu dooran lahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u ballan qaaday in dawladdiisu ay taageero dhinac kasta la garab taagan tahay dib u doorashadiisa qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa baahisay wada hadalka labada mas'uul iyadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu saaxiib dhow la yahay Farmaajo waxaanu ku dhiirigeliyay in dawladdiisu si dhow ay kala shaqeyn doonto ololihiisa dib u doorashada Farmaajo ayaa la sheegay in habeen kasta uu madaxtooyada kula kulmo xildhibaanada taageersan nabad iyo nolol kuwaas oo qayb laxaad ka qaadanaya ololaha doorashada Farmaajo xildhibaanadan oo badan kuwa ka soo galay dhinaca nabad sugidda iyo qaar kale oo badan ayaa inta badan lagala hadlaa ama loo diyaariyaa qaabkay kaga shaqeyn lahaayeen dib u doorashada Farmaajo iyo inay ka shaqeeyaan soo xirigelinta xildhibaanada kale ee banaanka ka taagan siyaasadda filo Soomaaliya Farmaajo kooxdiisu niyad xumo xoog leh ay ka muujinayaan 16 kursi ee Garbaharey iyadoo hadda ay u muuqanayso in Axmed Madoobe ay inta badan u gacan gali karaan 16 kursi oo filo Soomaaliya ay toos u guda gashay ololaha dib u doorashada Farmaajo aanay u muuqataa inay tahay kooxda ugu dhaqaalaha badan ee ka qayb galaysa doorashada 2022 walow doorashadu ay tahay mid dadban taasoo xildhibaanada ku tashanayso ay qof kale u codeyn karaan iyagoo lacagahana ka qaadanaya geesta kale go'aan ayaa laga soo saaray kuraastii laga xayiray koonfur galbeed guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalay fasaxay kuraasta kale ah hoob 204 iyo hoob 103 oo laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed sida lagu shaaciyay shir jaraa'id oo ay baydhabo ku qabteen xubnihii guddiga ee shalay tagay magaaladaasi sidoo kale guddiga ayaa go'aamiyay in lagu noqdo doorashada kursiga hoob 154 oo ka mid ahaa saddexdii kursi ee koonfur galbeed ee lagu diiday natiijada doorashadooda waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in xubnaha baarlamaanka ka soo galay koonfur galbeed ay si toos u tagi doonaan Muqdisho iyo goobta dhaarinta kadib markii ay qaateen shahaadooyinka xubinnimada sida ayaa lagu yiri warbixinta guddiga xubnaha guddiga ayaa sheegay in markii ay baydhabo tageen ay bilaabeen baaritaanka hanaanka lagu doortay labada kursi oo ay fasaxeen xalay sidoo kalena kursiga kale waxay go'aamiyeen in doorashadiisa lagu noqdo xubnaha ka tirsan guddiga doorashooyinka oo gudoomiye Muuse Geelu uu hogaaminayo iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariye Qorqor ayaa baydhabo u tagay xal u helida khilaafkii ka dhashay natiijada kuraastaasi dhinaca kale xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo diray fariin ah inay isugu yimaadaan sidii loo dhaarin lahaa xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaankii 10aad Cabdikariin Cabdi Buux ayaa xalay waxa uu soo saaray fariin wargelin ah oo ku socota xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 10aad fariintan ayaa xildhibaanada loogu sheegay in 9:30 daqiiqo xilliga barqanimo ay isugu yimaadaan oo dugsiga tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Generaalka Haya xildhibaanada ayaa lagu wargeliyay in halkaasi basas looga qaadayo si loo geeyo tendada Visioni oo dharintu ay ka dhacayso sidoo kale gaadiidka ilaalada ayaa loo sheegay in xildhibaanada ay u taagnaadaan gudaha Generaalka Haya sidoo kale xildhibaanada degan gudaha garoonka Danacad ayaa lagu wargeliyay in isla saacadaasi ay yimaadaan saldhigga garoonka halkaas oo iyagana lagu diyaariyay gaadiidkii looga qaadi lahaa oo lagu geyn lahaa xarunta dharinta ay ka dhacaysay Visioni
maanta oo khamiisa kuna beegan 14 bisha ayaa loo balansan yahay dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana xusid mudan in wili aysan Muqdisho imaan xubnihi laga soo doortay Koonfur Galbeed sidoo kale waxaan wili shahaadooyinkooda xubinnimo qaadan xubnaha sida weyn u taageersan Fahad Yaasin kuwaas oo kale ah Khadiija Maxamed Diriye Yaasin Faray Cabdullaahi Kulane iyo xubno kale aanay ku gorgortamayaan in loo fasaxo kursiga Fahad Yaasin geesta kale 10 wariye oo kamid ah kuwa ka howlgala Soomaaliland ayaa xabsiga loo taxaabay shalay saldhigga weyn ee magaalada Hargeysa waxaa ka dhacay israsaasin u dhaxaysay ciidanka asluubta iyo maxaabiista ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa waxaa xabsiga loo taxaabay qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa oo soo tabinayay wararka ku saabsan shaqaaqada ka dhacday gudaha xabsiga wariyaasha la xiray ayaa gaaraya ilaa 10 wariye oo qaarkood u shaqeeya warbaahinada caalamka wariyaashani waxay ku howlanayeen soo tabinta shaqaaqada ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa waxaana ay kala yihiin wariyaasha la xiray Maxamed Elig oo ah milkiilaha iyo agaasimaha MMTV oo ah TV ka howlgala magaalada Hargeysa Xasan Galeyd oo ah wariyaha BBC da uga soo warama magaalada Hargeysa Sagal Mustafa oo u shaqeeya laanta afka Soomaaliga ee VOA da Ahmed Maxamuud Yusuf oo ah wariye ka howlgala Saab TV Naciima Cabdi Ahmed oo ka howlgasha warbaahinta Aradig Media Aydrus Maxamed oo u shaqeeya Goobjoog TV Ahmed Shimaali oo ka tirsan On Cable TV Maxamed Faan oo ka howlgala MMTV أحمد سمراوي أو كترسن بولش تيفي يا حمزة حرسي حيدو warar kale waxay sheegayaan in ciidanka dhalcadda ay gudaha u galeen xarunta On Cable TV ee magaalada Hargeysa Mukhtaar Mursalixiin oo kamid ah howlwadeenada telefishinkaasi oo ku sugan xarunta ay ciidanka galeen ayaa yiri ciidamada dhalcadda ayaa gudaha u soo galay xarunta warbaahineed ee TV-ga On Cable saddex wariye iyo saddex farsamayaqaan ayaa qaar horteeda lagu jirdilay qalab ay ka qaateen xarunta xitaa daatadii CC camerada waan idin la soo wadaagi doonaa xogto dhameystiran ayuu yiri markana xildhibaanada cusub ee nisa ka tirsan ma ka qayb gali doonaan dhaarinta xildhibaanada diiday in shahaadada ay qaataan kuma koobna kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo kaliya sidoo kale waxaa jira xildhibaanada ka soo galay baarlamaanka dhanka nabad sugidda balse kuwa Koonfur Galbeed waxa iyagu hor istaagay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Laftigreen waxaa jira xildhibaano kale oo si iskooda u go'aansaday in aysan shahaado qaadan waxaana xildhibaanadaasi kamid ah kuwa loo yaqaan kudlada nisa oo horey u ahaa saraakiil ka tirsan sirdoonka balse hadda isu rogay xildhibaanadaas waxaa ugu caansan taliyaha nisa ee ku meelgaarka Yaasin Faray sidoo kale Cabdullaahi Aadan Kulane oo loo yaqaan Kulane Jiis iyo saraakiil kale oo xilal hoosaya Cabdisalaan Guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda kana faalada arrimaha amniga ayaa sheegay in arrintaasi siyaabo kala duwan loo fasiran karo balse tan ugu weyn ee laga eegi karay tahay inay la duubteen Fahad Yaasin oo sidoo sheegay gacan weyn ku lahaa in baarlamaanka ay ka mid noqdaan oo tirada xildhibaanada cusub ee nisa ka tirsan ayaa lagu qiyaasaa 20 waxaase jira kuwo aanan muuqan oo loogeyn xildhibaanadan ma aysan ka hadlin arrintan mar warbaahinta isku dayday inay la xiriirtana waa ay ka gaabsadeen in xildhibaanadu aysan shahaadada qaadan waxay ka dhigan tahay taageero ka maqan madaxweyne Farmaajo haddii go'aankooda uu sidan ku sii socday ilaa doorashada waxaana codkooda weyn kara shakhsiyaadka u ordaya guddoonka baarlamaanka ee raacsan filla Soomaaliya ama madaxweyne Farmaajo haddii go'aankan uu sii fogaado ama sidiisa uu sii ahaado si kastaba saameynta maqnaanshaha codkooda ee xildhibaanadan waxaa hoos u dhigay xildhibaanada ka maqan Koonfur Galbeed kuwaas oo sida muuqata la'aantood ayna doorasho ka dhici doonin xarunta baarlamaanka maadaama hadda la xaliyay khilaafkii Koonfur Galbeed waxay u muuqanaysaa in xildhibaanada Koonfur Galbeed ay Muqdisho imaanayaan waxaa la isweydiinayaa markaasi maxaa dan u noqon karaa kudlada nisa guudana saaxiibayaal oo naginta warka channelka tabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka lagsar share gareeyo la wadaag saaxiibada oo ku maasanteena dawto warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo